مثلا أجي أبان يجمع علينا أجيب هذا السؤال جبتين يريد عني لي أنا مدبت وكان سيسمى لبيرفق إلي إلى موحي عن هيني إلى نسع السينو وحنا على كلمة لسان أجيب هذا السؤال جبتين أجي أبان يقوم هذا من الأمان طبعا كان يوضح وحي حيوغي فضانا هاي قلت لنا لقنك إلى قلت كمال قالة ورنتي قاسيسة شبوية قاسيسة بينها كالمسلمين كستلها شوغالي السحور كورية من دمدونا إلى المضبعاتك هذا اللي الشيء أيوه وهذا كان لقيها سلطان أبي بكر عند وبر وكم مقام مريه الجاري ويصبر كوكها وبقي هلكم أساسي ونعلم السياحتي وننجم لقيها لكن تلك المطعم نقول أنها سلطانو باسنا شنو هو أنا شو لكن ما تلفون يصير وانا كمان وايسكنا لكن تلك هذا نقول أنها وهو يقول على مسؤولية جاي ووربا اللي السوقية وركيل اللي السوقية وما عاصمة حتى أنا هيك كيل السوقية إلى مصوبات دقنه بشرة كده كيلا بشرة كده مصوبات دقنه ويترك يستعد بان وعاصمة وهو عاصمة وبريها من اللي السوقية ما كل عيني بنيولا كده بوسي يدهن سبا سيدي ميلو توجي لها لما تابتان هي لما نعفان بانو يلي لها إن الله أساسه أما الله غاس الله عليونه إيش الوين قد بوسي سيدو كل لها لقبته أنت قال رئيسنا أوحي هؤلاء بنان يوم من المرة أنت يضني يتكلم كلام وينا أي تسي حكيان أي بنت نوحي فلانتي عيكا هاي ما أنت وحوي وحنا قوعان سنة إلا ملقا يفصلوا أيام قوعان سنة أو لقت ليه أيام قوعان سنة وحنا قوعان سنة إلا لقت ليه قوت وكوها بوي هاي شركة المسلمين ودعوه waxaan go'aansanay in laga taliyo goobta magarasay goob waxaan u jeedaa goobta waqtiga uu ku habboon yahay in laga taliyo magarasay halka laga dhigayo in laga taliyo ergada ka soo qayb galaysa in laga taliyo dhaqaalaha hadda la yiraahdo dhaqaalaha halka laga doonayo in laga taliyo guddiga dhaqaale raadinta hawsha hadii la yiraahdo galaysa in halka maanta laga taliyo waxaan ka go'aansanay in laba maalmood la shaqeeyo qabano oo ka bilaabma 8 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo waa maanta waa Arbacada oo bisha 9 tahay iyo bariyo Khamiis tahay bisha 20 tiiba ugu yeeray toonkayo inaad ka talisaan oo aqoontiina cilmi maadi iyo diineed iyo tawaay aragnimo iyo ganacsi iyo tababar haween ahaan lafteeda iyo dhalinyarada إلى غيري كردونا كتايا بالمام باقي هاي وحويه رقم بايع ضبايا رجع وش يلو ذا بايع ضبايا وحن هذا كسور كنا هذا شركة سمات هو ينوف ري هاي كسور دوالا قيلا كردونا حاجة بشدة تبدينا وحو هذا الدوطة بدون من بكاد الدورة أنت وحي كتايا مركي علماء يا أبويا كي هواك يا دليل مركي يبقى مفتاحه وحي وحكة ضبايا حد الله يداهو waxaa loo kala tegi doonaa talo saxaafaduna waxay naga toban doontaa dibadjoog arrintii waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkii waa furan yahay rarkii asinay baan idigu wareejinaynaa inaad maqaadaan doonaynaa waxaan rajaynayaa inaad u diyaargarowdaan waxaa ilaahay ka baryaa inaad ka mardhalisaan inagoo isbaba soconna asalaamu calaykum sharaf bay noo tahay maanta qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee beelaha kala buugsin inaynu maanta halkan isugu nimaadno waayo muddo dheer bulshada qaybuba isku iman jiray oo arrimo gaara isugu iman jiray oo loogu yeeri jiray maanta way ka duwantao waxaad moodaa in qaybihii bulshada oo dhan idiinagala jirto yani wuxuu masalayaa maanta shirweyneheenii oo kale inkastuu yahay wadatashigai haddana shirweyn oo kale ayuu noo yahay maadaama bulshadii oo dhan ay ka muuqato aad iyo aad bay sharaf inoogu tahay inaan isku nimaadno aan wada tashanno aan wax isweydiino annagu maanta hadalka malihi inta badan malihi sababtoo ah dee ninka wax soo bandhigaya isagoo inuu hadal badan yidhahdo maca idinka ayaanu doonaynaa inaad hadashiin oo wixii tala iyo tusaalaha aada dhiibtiin
كلي أنا واحد مسوي سنة إلا أنو ثلاثي أنو روني يقولي أنو سمعني إلا ينادو هذا الرجال يبين إنه قوي بوليس في أبو فهمني قولها دخلك إيه من لماذا قولها من لماذا دخلك قلبوس أيها الناس هذا أنت هذا وأنو مديني اسكتوا أنو سمعني من لما سمعني من لماذا سنوات ما تكرر بدوني مرحلة فربنا أو بالمان وقلت رجال بسكر هي اللي قلت ومن لماذا لا يفعلوا waxaanu maanta idin haynaa oo aan idiin sheegaynaa in guddigeedii midnimadu golihii midnimada ee aada sugayseen waxaad ogtihiin inaanu beri dhexdaasa ku baaqnay in la sameeyo oo la isugu yimaado shirweyne guud oo beelaha gadaburso oo dhan isugu yimaado waanu shaacnay waad maqasha kii oo aanu sii lafagurnay oo hawlo badan oo aanu galayna ay jiraan ayaa waxaanu maanta sidii laydiin sheegay rag iiga horeeyaba ay ka hadleen waxaanu idiin soo bandhiganaa maanta inaad idinkuna ra'yigiina ka dhiibatin waayo hadhow waa la sharxantaayo war odayaashii intay wax duuduubeenba iyagu meel la marayna maalay dadka kala tashanay taladii baan maanta idinku yeedhnay taladii inaan doonayna annagu inaanu qaadno oo aanu maaragtay aanu ku camal falno markaa waxaanu idiga baahannahay annagu midnimaanu nahay idinkana waxaan idinku waaninaynaa sidaad maanta isku timaadeen inaad idinkuna midnimada u adkeysid haddii ay tahay aqoon-yahan haddii ay tahay dhalinyaro haddii ay tahay haweenka waxaan doonaynaa horta inaad meel aynu ka wada qaadi karna ay jirto idinkuna aada midnimo muujisiin ma diyaar maogtiin inaad midowdiin ma maqlayo weli waxba diyaar maogtiin inaad midowdiin markaad midowdiin annaguna waanu midownay oo dhaqankii waanu ka midownay idinkuna markaad midowdiin ayaynu wax wada qabsan karan aynu dhinac wada sheegi karan hadalka badin maayo waa sidaa laydiin sheegay maanta waxaanu u fadhinaa taladiinnii arrinkaa qodobkaa la sheegay inaad talada ka bixisiin dabeedaan annaguna ku camal falno waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu inta shabaab waxaan u malaynayaa waa inay iswada garanaysa nafarka waanu soo noqo waxaan ka yaroreysiye anigoo muddo badan baan soo wadwaday arrimadan iyo dadkan dhowr iyo 40 sanaan malaynaya intaan soo dhex joogay walba meel isugu yimaado weli layguma xamana aniga tala gadabursidu sii halkaa waxaan uga jeedaa sheeko yaroo waxay isa imiga tidhaa sudaasalebaan wuxuu diidan yahay isku taga way ma jirta horta mise waa ku daraya isku taga u diidan yahay dadka cuduruna wixii lama saaro wuxuu leeyahay la saara anu wax kalaan diidan ma diidintaa weligay ma diidintaa maxaan u dhimanayba jawaaban usoo dhintay anuu dadkani inuu wax ahaado ama waxaan isu qabaa inaan usoo dhintay horta ciddii taa tiri iyadaa dee ay raacsan tahay ciddii maqashay taa ha hadal hayn anuu inuu wax noqdo inuu tashado inuu meel isugu yimaad kow baan ka noqon laba ka noqon maayo anagoo wanahay halkana samaysa intaa anaa isku dahiraya cidda samaysayna waxaan leehay way gaftay ciddii dhegaheedu maqashay ee ka saar dhegadii waa kan faraskiina waa kan waxaa kaloo yar jiray wakti يعني وقت يوجد سمير وكله إن السودان ده يسداف دافن يعني هو مادة كله وحاله هو اللي تجوا كتير ولا ولا يوجد فإذا هالشيء يكفي وكله لا بلا سياسة لا بلا ندوا كله لا ندوا حتى إذا ندوا تعبر أنت هو اللي جنب حيوان اللي جنب الأرض فجأة ده كذا فأنا جنب الأرض فجأة ده كذا أنا سؤال نقول جدا أنا أذكر إنسان وحنا يسود يكري وين لما أورن هذا كم هذا الكلام عن هذا الله هو هذا الولي ما قال كيس ولي الدوسي ده اللي يدي أسوأ وين
waxay noqonaysaa nabur nagu dhacay bay noqonaysaa nabur nagu dhacay buu noqonayaa haddaan waxadisno oo wixii higeli waayo waa nabur nagu dhacay wakaa waan hadisnay horta naburka aan iska eegno naburka aan iska eegno sidaa wax loo yidhi waxa loo fuliyey tilmaamuhuna waa intaa la sheegay oo anuu sii dhex geli waayo waxna yidhi wax lagu noqnoqdoba male anuu waxaan ogahay inuu dumarku fulin arrinkaas dumarku wuu fulin arrinkaas ragse wuxuu yeeli doono ma hubo ciddaa waaninaya waa rag dhalinta iyo dumarku wuu fulin way ka hirgeli ciddaan u digayaana waa rag waa dhankay ka baxdaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu in sidii aan isugu xilmi lahayn cudurda uga midoobi lahayn caqli wada tashadoo midana u yeelan lahayn ayaa maanta la isugu yeelay inaan saa noqono amarta faraaq baa laga sheegi jiray 3 biloodoo midoo meel ka yar fuladalooshataa la sheegi jiray tii inaan soo gaabino isku duubni hawl aan nidhaano baynu ka soo gelinaynay maantaynu hele insha allahu ma ka midownaa sidaa inaan muruqa midayno malaha midayno siyaasadda midayno wax walba aan ka midowno ma ku tashanaa intaan idinku yeelna waa intaa waa goobkii lagu qaban lahaa shirka inaan ka soo talina siduu u sheegay waa markii ay noqon lahayd bishii ay noqon lahayd ama maalintii ay noqon lahayd inaan ka tasho shirka in la wada tashado meel malaha la isugu geeyo inaan wada samaysano wixii haddeena ma facinoo noqon lahaa ilmaheenuna u aayi lahaa waa dekeda waa dariiqyada waa daraheeda kale inay ka midoonoo samaysano keenna dibadda jooga iyo keenna gudaha jooga waa caruurta dhallinyarada waxaa laynaga jaraa imika muxuu ah waddada ceerigaa waxaa loo jaraa lacag baa loo jaraa soo maha haddii la wadadeeda iyo dekedeeda ku samaysanayna aan jaro kaana ka jarna keennana ha laga jaro aan sidaa ku tashanaan idiinku yeelnay intaa ma ka midownaa ma ka wada tashanaa ma u wada tashanaa haddii ilaaha idhaahdo aada iyo aad baan umaasantii kolley nuxurku waa intaa insha allahu nin waliba ha ku tashado ha ka taliyo hana laga midoobo waa gadabuursi waa sabaroon waa ilaa min hina dekeda ilaa dariiqyada ilaa dareheena wasalaamu calaykum warahmatullahi kulley waxaan malanaya hadal banaane halka igoo banaana maanta waa arrin dhaqan waxa meesha kulley silaahay way ku habboonta inaad ka tidhaahdo taa hambaryadoo aan xoojinayoon mar labaad leeahay haddiiba aada wanaag isugu timaadeen waddankuna horumar buu gaadhaya haddii ilaha idhaahdo bulshadu markaas ku timaadeen horumar ka fikirayso ilaahayna ula toosinaya waxaan isuguma iman in danaha dalka iyo dadkaba laga tashado ayaa isugu timaadeen dee arrimaha kale ee kolley salaadiinta aada uga hadli doona horta waan idii hambalyanaya mar labaad iyo mar saddexaadba markaas ku timaadaan unbuu horumarkeenuna noqonayaa wax miisaan le runta hadduu laakiin mid walba u dhinaciisa ka foofo wax alla waxau qabanayaan ma jirte waa hal bicad lagu dhisay laakiin tabartiina haddaa isku wada geysaan wax fiican baa soo baxaya talo fiican baa imanaysa waxtar fiican baa imanaya xataa wax kale iska daaya waxa aynu maanta qaadhaanka ururayna qof keliya looga qaadi lahay waa waxaa noqoto qof keliya inaan culays ku noqon hawsha qof keliya ku dhacda culays bay ku noqonaysaa laakiin marka la tashadee la war maxay noo dana halkeen dariiqee noo saxa halkaynu ka baxnaa halkaynu marnaa waxa weeyaan waa mid aada u wanaagsan runtii waana soo dhaweynayaa ciddii qabanqaabisay hawshan iyo inta maanta soo ay jirta inaad yimaadaan kolley intii ardoorka way joogaan maanta dee waxaan leeyahay wax idinka qabiyay ma jiro ilaahayna dariiqa saxda haynu waafajiyo haddii la idhaahdo annaguna taasaan idinku garab taaganahay dowladduna runtii aada u soo dhaweynaysaa waxyaabaha noocan oo kale ah wada tashi iyo horumar iyo iskaashiga horumar loo gaadhaa haddaan inta wada tashan waxba horumar la gaari maayo wax kasta oo iyo ama meel kasta wanaag laga tagnayana way soo dhaweynaysaa dowladdu aada iyo aadna waa maasantiin waxaan aada u bogaadinayaa gudida dhaqanka golaha dhaqanka halkaa soo fadhiya oo runtii inoo dhan oo aan sida cabdikariim u dhagay ahayn runtii ahayn awdalkan ku xajilaye intii beeluhu ku nool yihiin gobolladii ku jiraan oo dhan oo waa ay matilayaan yani awdalkan awdal midun baa loo yaqaan administrative waa gobolkanu gobollada kalena way ku jiraan kaasi halkaa loo fahmo
آدي أتبان نقول قاعدين هنا يلو أدود تين كاستيدي كم قيها إن شاء الله ما كانوا يمسكوا وينها مركز شباب قبل ردوا هوية ردوا في الوضع أول ردوا باليرينا وهذا كانوا كانوا وحده لهاي وايد تشترين وميرو بشر بعد الصورة أما سوق الصومي أما وايد كل فايدينه مركز لا وتشنو ده واحد روحانه بتتعمل وادن لوبا هي والشيخ إلى نوفر ديال إلى هنا هم حلقهم بدلوا إلى يوم اسم الدلال ويسلك يلي إلى هي كان كينسي عقل وينسي دلب وينسي نبت وينسي marka ugu muhiimsan waxa weeye shirka iman doonta halkeen uu soconaa baa laga tashanaya yisdeel u gaadina wala labada marka waxa ku dari lahaa kaliya ajendayaashu way fiican yihiin oo dawaynta loo baahnaa waa waxa iman doona hadhowta inaynu ku dari doono shir waliba uu leeyahay ujeedo oo dadku haddaan ujeedda xadida loo samayn lima meeshu dooro ka hadlaa way isku taana in ujeeddada shirku qeexan ujeeddooyinka shirku iyo talooyinka rabnayna ka soo baxaan outcome-ka rabnayna ka soo baxaan inaynu iyadana shirka waxaan ka rabnaa annagu markaan casharka dhigayno waxaan ma shir qabanayno shirku markuu dhammaado waa in la helaa taa 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 taana waa insha allah dee group discussionka marka kooxuhu haliyana ay jilcinayaan ayaynu ku darsan doonaa wixii annagu aan inputka iyagii imakase waxaan u leehay anigoo ka wakiila saaxiibada kolba iyo ciddii hadda doontaba in aan idinku hambaliyeyno inaan diyaar u nahay qaybteeda inaan ka qaadano in qoraalada iyo wixii talooyin aan gacan idinka siin doono horta runtii aad baan u bogaadinaynaa oo hambaliyeynaynaa shirweynaha beelaha kala oo in badan odayaashu ay ku mashquulsanaayeen iminkana ay noo soo bandhigeen lama sugayo meesha lagu qaban doono iyo kaalinta la qaban doonana la sugayo marka runtii uguma muuqata aniga halkan imika inaad dabi sugaysaan inaan meeshaa sheegno ama kaalinta imika halkan kuma ay jirto laakiin waxa weeye anu islaan arko waa sidii loo baahan yahay guda iyo dibadba waa laga raalli baa laga yahay maskaxdana ha lagu hayo nuxurkiisu aniga laba arrimood buu igu egyahay inuu ku kooban yahay siyaasadda waddanka kaalinta aynu ku leenahay iyo sidaynu uga muuqanayno horumarka dalka waxaynu gobolladeena ku horumarinayneen ugu qabanayno inagoo isku tashanayna iyo igu muuqdaa waxaana laga faahfaahin doonaa kolley gadaal baa laga sheegi doonaa waxaan ka digayaa inaanu noqonin shirkii barigii kacaankii ugu dambeeyey dowladdu burburaysay aanu qabanay qulujeed ku qabanay bil gudaheedna lagu kala diray xukuumaddii waxteegaa jirtay ay ku kala dirtay ee ay tidhi cid ku dhaqmi kartaana ma jiro cid soo qaadi kartaana ma jiro halkaa ku kala dareera ee odayaashii waxna xamar u yaaceen waxna markaa ka u yaaceen ee laba isku timaadoo dambaba la waayey ilaahi subxaana watacaala tii maanta dhici mayso xukuumadda maanta joogtaana maaha xukuumad dadka caburinaysa oo ku muquuninaysa oo sidaa yeelle qof waliba almaru xaytu yadacu nafsa qof waliba halkuu isdhigo weeye marka anu waxaan kusoo koobaya hadalkaygii waxaan shirkaasi waa soo dhawaynaynaa odayaashana aad iyo aad baan ugu hambaliyeynaynaa sida ay usoo agaasimeen waana ku waafaqsanahay wixii ka soo baxana insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo hirgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullah ilaahayna waxaan ka baryaynaa maanta waynu midaysannahay inuu gabagabadeedana aynu tusay looga midaysan waxaan aad ugu faraxsannahay khaasatan waxaan dareemayaa shurwaan weyn markii xamar laga soo qaxay waxaan riwaayadan oonan isri ku lahayn oonan weligii lacag ugu gelin aan lacag ugu galay bal inaan arko gadagusi tiray maanta ilaahay wuxuu igu simay inaan suldaan iyo caaqil iyo culimo dhalinyaro iyo haweenba inaan dhex taagnaado shucuurtaasi qofkii ka maqnaa ee shisheeye ku koraydaa dareemi kara aad iyo aad baan u ogaadinaya halkan markaan u gundadego ujeedada nuxurka waxaan aad u hambalyeynayaa waxgaradka iyaga ama odayadayada gartay inay nolosha naga soo qeybgeliyaan anagoo haweena waato aan horay taariikhda uga dhicin aad baan u hambalyeynaynaa waxaanu leenahay hambalyaad ku leedihiin kollaydana waxaynu ugu horeynaa inu hormudu unahay dadka soomaaliyada inaynu waxbarno waxaan leeyahay dhammaan oday dhaqameedyada inay hadda kadib haweenka nolosha kasoo qeybgeliyaan laakiin mid baan idiin sheegaynaa annagu dhexdeeda suldaan baan leenahay
haweenka daalka ku dhaca shir kastoo mada la isugu yimaado rag iyo cimaamada qurux badan iyagoo wada garramaya ayay soo fadhiistaan ka waran aad gaajisantay iyo garrab ilaahay haweenka dherigaad u dirtaan laakiin waxaa la ogaataa iminka dherigaana oo kale haddaynu fikirkiina ugu jiro inaanu jecel lahay inaanu dadkayaga annagoo marna idin daba soconno oo idin mashxaradayno oo idin hambalyeynayna haddana mar idin hareer soconno oo aad naga siisaan fikirka iyo talooyinka dambe ee shirweynaheedaan lagu reebin gariga in madasha tegi taqaanana waanu leenahay kolay waxa weeyaan waxa laga hadlaya ee gurugurug la isku saaray ee qodobada la dul joogsan doona waxa la yimaadari maanta se waxa keliya teen meeshaana u istaagna waxay tahay haweenka tiradooda waa lagu yaraysana toban nooga kordhiya suudaan iyo caaqilkana nooga qaybgeliya asalaamu calaykum anigu maanta waa faraxsan farxad baan aada iyo aada u baraara alxamdulilah waxaan waayadaada filayay oo ilaah goorma ila doonta aan lahaa oo ah midnimada ummaddan ayaa yimid wax lagu farxa weeye aada baan ugu faraxsanay waxaana ilaahay ka rajeynayaa midnimadaa uu katay inay xoogeysato maalinba maalinta ka dambaysa xoogeysato oo mid midha keenta ay noqoto ummaddani ummadaha soomaaliyeed la mid ah oo madaxeeda kor u qaada oo aan fooleyn inay noqoto ilaahay ka rajeynaya ummad baadda ku socoto maaha ummad dad ku duulaysa maaha ummad dula ku shiraysa ku heshiraysa maa cid ku duulo ama dhul doona ku shiraysa maaha waa ummad doonaysa ayaheega iyo jiritaankeega inay ka hadasho taasina waxaa ilaahay ka baryaa inay guulayaado waxaa u soo noqon qodobada halkan lagu soo qoray shirkan lagu fadhiyo maanta waxyaabaha waxaan ka hadlayaa marka ugu horeysa in laga bedelo shirka haddii laga amaro oo codsi shirka wadatashiga in laga dhigo shirka aayakatashiga kelmadaa in lagu bedelaa codsanayaa waa kow waxaan kaloo raacinayaa shirweynaha geedabuursi sabaro baa dhabiya sabaro geeda ka saar meesha sabaro loogama baahnaana ummadda geedabuursi oo keliya ku filan taana codsana waa kow waxaa kaloo aan doonayaa inaan ii sheego walaalahayo in goobta shirku ka dhici doono waxaa layi dadku laga hadlo iyo waqtiga la qaban doono waxaa soo jeedinaya anigu haddaan nin kasta oo aniga waxaga dibadda meel halkan sicdeemina halkan weli badan ku hayraa sobiyaska soo lagu dad badan anigu la mid oo qurbaha joogaa si anigu maanta anu faraxsanahay inay iyaguna ka farxad badan yihiin waxay sugayeen koob goobta laga dhawaajin doonaa shirkii aayakatashiga ummadda geedabuursi goob iman doonaa baan iyaa filay waxa weeya walaalahayo wiil iyo gabadh aabo iyo hooyo ummaddanay waxaan leeyahay ilaahay xaqa haynu waafajiyee midnimadu waa shay muhiima oo meelo badan lagu gaaro oo meel khayr lagu gaaro midnimo ay naga maqnayd midnimada ahla xoojiyaanima ku dardaaraya ka halka jooga nabadoonada salaadiinta ugaaska ummadda ilaadiinta ragga wax maxaa horeeyahay tacliimta haya ubaxa soo kacaya kuwa qurbaha jooga nin kasta halku joogo inaanay waxba ugu hooseeyin ummadda aad ka dhalatay magaca guud ee geedabuursi meeshuu jooga magaca ku kacdo wax ku qabato oo garab doogsato nin kasta oo magaca kula wadaaga aad garabkiisa istaagto oo baa dhimato ayaa ninka ku dardaarayaa waxaana leeyahay ilaahay hayna xoogeeyo ilaahay xaqa hayna waafajiyo midnimadeena ilaahay ha xoojiyo midnimadeena ilaahay ha xoojiyo isku qalbi aan ahaano isku uran ahaano isku af aan ahaano walaalay barnaamijyo ama waxa weeye aqoono noocan oo gaarsi soo habeeyey ama dhalinyarsi soo habaysay ama waxbarasho ah laakiin maanta oo beelweynteennii geedabuursi ama samaroon ay maanta waxa weeyaan meel kasta waxa weeyaan
askaraadka maanta ana joogtay magacayga maanta oo midaysan oo hadlayo runtii dhalinyarahana farxad noo yahay aad baan soo dhaweynaynaa marka horena oo ka qayb galay oo aan ka nahay markii hawsha la waday kulay hawshan oo ka bilaabantay xilligii wuxuu baakeeyay dhaqankeedii soo noqday kula dhalinyarta qaybta maanta arkay oo hadlayay anoo hiliyo la kala taagan waxaan kala qayb galay golamadoodaasi taasina runtii waxay noo balan qaaday maalmihiina hawl ay ku jiraan hawl ay wadaan khaasatan qaybta diyaarisay maanta hawshan tiina waan ka filaynay annagoo isweydiinaynay halkan baa lagaga teg laakiin maanta waxaan leenahay hawshii way dhawowday oo maanta wataan noo fadhino waan iga mahad celinaynaa inta kale hawshaa qaadi doontana waxaan leenahay in iyaguna waxa weeyaan sidaa ay u fuliyeen markaasi waxa weeyaan ay u qaadaan annagoo hataan dhalinyartiina kulley waxaan balan qaadaynaa laba arrimood arrimahaas waxay yihiin maadaama energy badan hayno annagu aqoonyahankiina maanta intay u saraysiinala joogaan wixii kulley ka soo baxo wixii da fikra iyo wixii contribution uu contribute gareynaya arrinkan jadiisa saad sheegtay berito uu noqon doonaa laakiin waxay tahay mahadnaq iyo in waxa weeyaan aan nina kala taaganahay heliyo hadalkan ugu baahnaan malaynaya laakiin dhalinyartii dhammaantayo marun baanu ku fikirayna ma arki doontaa xilli la isku wada yimiday oo markaasi waxa weeyaan wax la wada qabsanayo maanta haddii tii dhawowday annaguna taanu hayno ayaan ku dari doonaa waxaana balan qaadaynaa waqti kasta oo la qabto habeen iyo maalin xilligay tahayba inaan garab taaganahay loo socdo iyo ujeedooyinkiisa in halkaas ay ka soo bixi doonto sidaas ayaan maxaa u gartay taa waxaan la sugayaa dee fikirkayga ama group discussionka ama muxuu ahaa dee wixii aan tala hayaba halkaas ayaan la sugi doonaa laakiin iminka waxaan bogaadinaya isku imaatinka iyo midnimada iyo sida muxuu ahaa beelaha galbeed soo urureen waxaan ayidayaa walaalkii xasan nuur kooshin in halkaa wada tashiga leeyihiin aayata tashiga laga dhigo in aayata tashi laga dhigo taas ayaa muxuu ahaa ka weyn oo ka sarreeya tan kale oo yiri maxaa samaroonka laga saarno waa run dadka qoomiyad baan noqon samaroona qolaan noqon marka qolanimada laga saaro oo qoomiyad tahay dad badan baa soo gelaya waxaan kaloo raacinaya tii muxuu ahaa cabdikariim iyo awdal oo professor salamaano oo ka hadlay marka la leeyahay horta gobol lagama hadlayo laakiin dad baa laga hadlaya iyo dhalasho awdaliyiin baynu nahay inagu cid kastaana soo gelaysa muxuu ahaa oo qoomiyadaas oo hoos timaado ayaa awdal soo hoos gelaysa marka ree awdal inaan ku abtirsano haddii loo muxuu ahaa loo gudbayo in gobollo la sheego in laga soo bilaabo gobolka gabiley gobolka awdal iyo gobolka sele intaaba dee ree awdal way degan in intaa muxuu kilka shanaada marka taas waxay ku soo baxaysaa yikaariyanahay dadijina yani shirka qabashadiisuba wuxuu ku salaysnaan doonaa ma intan adaynu ku koobanay Soomaaliland ku noqon doona ma mantiqada aynu ku noolahay iyo deegaankeenu noqon doona taas lafteedu muxuu ahaa shirka yani iyo ajandayaasha loo sameeyay ay soo gali doontaa haddii aynu Soomaaliland ku koobnaanayna ajanduhu si buu noqon doona haddii aynu mantiqada aynu ku noolahay galmudug ku nool yahay ka hadlayna ajanduhu si kale ka duwan buu noqon shirweynaha hadda aynu u fadhino maanta in uu noqon doono ilaahayna aan ka bariyo inuu noqdo mid dhaxalgala sidii aan ugu midownay ugaaskii ugu yimideen London cid ka maqlay aanay jirin dabcan ducadiisiina aan qaadanay waxaan rajaynayaa waalidadeena waqaasheena salaadiinteena sida ay talada wanaagsan ee caafimaadka iyo caqliga iyo niyad samidu ay ku jirto ay u dadaaleen dadaal xoojina dadaal gaar ah u sameeyeen inaynu inaguna kaalinteedii inaynu ka qaadano inaynu garab istaagno si aynu ummadaha deriskeennana aynu kula qaysano arrintaas hadda intaa kaga baxo wax yar baan ku darayaa walaalayaal wax badan baa inaga maqan sheekh cabdullaahi sheekh khayr allah siiyo wuxuu yidhi ajendaha shirka laba qodob umaan u malaynaya inuu noqon doono xagga horumarka iyo xagga siyaasadda labaduba labadaas uma inay isku soo horeysa aniga fikrad ahaantay sheekh aad baan arrintaa ugu taageersanahay marka le wax badan baa inaga maqan cabashooyin badan baa jira cabashooyin badan ayaa jira oo hadday noqon lahayd xagga siyaasadda xaggii aqoonta maalin weyta waan kaga dhawaajiyey alxamdulilah meel kasta oo tagto reer adal anu awal oran maayo reer adal baan ahay markaan idhaahdo markaa wax maskaxda qofkiisa kasoo dhacaysa aqoontii aqoonna waa muftaxa ugu sarreeya maanta meel loo marahay ma jirto oo runtii dee dad badan oo innaga inala mid yihiin way rafaadsan yihiin oo weli waxay taagan yihiin 1991 ay taagan yihiin laakiin maanta inagu
caalamka ayaynu la jaan qaadnay waynu la tallaabsanay ilbaxnimo iyo horumar badan ayaynu samaynay taasina waxaa kowka aqoonteena ayaa kowka warsamarkaas fadhiya طبعا جامعة وكبوغ ضد الفصل أنا مركها مثلي غير أوضل ديك غير أوضل الوجري لكن كلنا صحفي كهذا التلفزيون كاسب تي في والله أنا عن كسرني سؤال قراية وفيديو أقول الفصل أرد بدل بصورستان والعقلية يمسك هذا أكسورستان أرد إذا سمعك أسواق الجبيان أي بنا كوسو بحان وح شقينا أو أشتغل أنا بقول إيش شغلتك البروفيسور موشا runtii meel gaaban buu su-aasha iga siiyey wuxuu igu jawaabay annagu caqligaa soo dhisnaa buu yidhi annagu ma nihin kaalin shaqaageys ma nihin kaalin shaqaageys annagu ma nihin buu yidhi laakiin haddana kaalintayda ma ana guulaysto waanu dadaalaa sidii aanu u geeni lahayn ardaydaas walaalay ardaydaasi dabcan waqti badan baa kusoo baxay tacab badan baa kusoo baxay kharash badan baa kusoo baxay beri ka maalin inankii jaamacadda ka soo baxay haddii uu shaqo waayo waxa weeye waa is-asla ومصيبة وإلهي له مكان ومصيبة أنا كوي وين بركة وحن جعلها أجل ياشا شركة حالكم إن شاء الله بريتهم ولا كل ولا قد وجد دونا إن أي نقطة إن ضرية هذا ضرية عقدة كمستحنا عافمات كقطع إن كارين توريسي لو جهين لها إن قاعدين نطلع نلسوي يوم يأتي عند أسفل أي وجهته وضياش الناس يسوينا أقوياء كي الناس يسوينا وإن الأجندة كترسنا ضرية خاص إلا هذا ومن بدها نوجليو وزارة العافية كذلك تصبح موضوع عن مجال بدنا نعرفين تنجوه ورئيسي أسبي إنه أي مالهاس كهلان الشركين لكن في تود بدني أنا يخبرني خاصة حسب دوت آخر إلى بيها يبدأ أي سكول هذا أن مرة ما يروتين كل ريو فرق بدنا ويا كهل النشر عم شوي كان هذا وحي كتابه وحكمله runtii xagga siyaasadda aad bay u welidanaa xagga siyaasadda aad ayay u welidanaa